ninka kan aad u jeediin ee calalada buluugga leh iyo midka kaloo ag fadhiyaaba waa laba nin oo ag taagani waa laba nin oo walaala labada nin oo wada jeeda gobolada bari ee Puntland ayaa sheegay ninka kani oo berada buluugga wata xirxiran inuu habartii surka ka jaray uuna godin surka uga gooyay xilli barqa ah. aan iniisoo bilaabay ninka kan oo habeen barkii cidda u yimid oo habartina joogtay naagtiisina mar hore ay kala tageen habeenkiina qarow iyo dibaab badan ku jiray xilli uu bargo ahaa ayaa subaxii aroorta hore xilli intii dadka muslimka ay salaada tukanayeen habarta oo ariga lisaysa ayuu u soo dhacay xiradii. habartii oo argagaxsan ayaa geesaha fiirisay waxay aragtay ninkan oo ceesaan kala sii boodaya sidii libaaxad gool ah oo meel xero kala booda neef oo kale. ninkan oo kelida ku dhegan ee lasii haadaya habartii ayaa halhaleel uga soo dababooday. waa habrihii hore ee bootin dheerayaasha la oran jiray. habartan oo 82 sano jir ahayd ayaa xanaaqday kuna soo tuurtay godin ay ariga ugu jaba qaadi jirtay kelidana kaga dhufatay ninkii odaga ahaa ceesaanta lasii xambaarsanaa. naxdin awgeed ceesaantii ayaa ka dhacday orodna isku taabatay isagana kelidii ayaa barartay. isagoo xanaaqsan ayay haddana habartii dhaga hadal iyo wax matare iyo bakti cune iyo caleemayste iyo balaadiisay ugu gudisay ninkan oo dhididahaya xilli barqana ay tahay bacawis qolosofaysana tafaxaydan oo dhiida ka taagan tahay ceesaantina laga dhigtay ee haddana waxay ula timid guraabaas. intuu xanaaqay ayuu ku soo riday bahal godin ahayd oo loo yaqaan geeda qor halka galowdu ka godan tahay uga dhuftay habartiina bartii ayay ku nafbaxday. allah ya raxma. ninkii wuxuu cararaba waa lasoo qabtay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa lasoo dhigay wuuna xirnaan jiray. walaalkii ka weyn ayaa ka yimid Denmark halkaas ka soo boqolay uuna wacad ku maray ninka kan oo meeyda mooyaane inuusan dib u laaban doonin. sidiina ayaa dhacday maanta ay taariikhdu tahay 28 bisha Afraad 2025 ayuu halkaas ku sagootiyay. sawirkaas aad u jeediin waa walaalkii oo sheegay inuusan dunida korkeeda uga tagi doonin Denmark-diisana ku noqon doonin ilaa ninka kan la toogto. sidii ayaana dhacday. allah u naxariista maxaa kale urbaha noo soo falow gareeyo bahal